عباس رضي الله عنهما أيها رجلي قفك عباديستا إلهي حدير في عليشا صلاة أي هاجاكتو عبادتي إلهي أقبله شن نعمدود با إلهي أدونك دوشيدا وكسيا نور في القلب بيقول قلبي إلهي نور بدحدقا وضياء في الوجه وجهي سنة إفتين با كبحا وقوة في البدن جركي سنة إلهي قوتي حوق بو قليا وسعة في الرزق أرزاقتي سنة إلهي با واسعي وبركيا ومحبة في قلوب الخلق خلق قدنا إلهي قلبي قد قعيل كالقعيل با إلهي وقليا شنتاس نعمدود waxaa lagu gaadhaa ee lagu helaa wax xiriirka ilaahay oo ku adkaada shahawaadkiisa adduunka dusheedu ku gudanaya weeyaan waxa uu doonuu sameyn waxa uu doonuu cuni waxa uu doonuu cabbi dharku doonuu xidhan soo doonuu timaha u xiiran meeshuu doonuu tagi waxa uu doonuu fuuli sidoo doonuu u hadli halkan weeyaan jannadiisa isaga laakiin maalintuu dhinta maxaa u dambaysaa ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بإلهي قال هذا ها عنان بإلهي اسكا دافا اسكا عنان او ها اسكا تنتان او ها اسكا راحيستان oo hididilladuna had dagto hididilladu waa maxay waxaabaan samaynay waxaabaan samayn doonaa waxaabaan gaadhnay waxaabaan soo wadnaa kolba cilmi baan gaadhnay macluumaad kalaan keenaynaa horumar baan adduunka ku soo biirinaynaa ilaahay baan la ilowsiinayaa laakiin waxa ilaahay gadaal dambe ay soogaan doonaan baa ilaahay laha ayaad u nisbaysa soomaha dad kale waa wuxuu ilaahay ka bada marka adiga dadkeeni inaga baxay ee dhulkeena ka baxay dhulka wada u baxay oo dhan maanta waxaan oran karaa 80 ama 70 mujtamaci inaga tagay way ku daayeen ogaada in yar baa ka nool maanta in yar baa damiir leh oo dadnimadii iyo diintoodii si haysata shalay mu'tamarkii dhamaaday culimadu ay soo gabagabeeyeen ayaan dhalinyar ka timideen Minnesota ka yimaadeen iyagoo dhowr ah markaas aniga iyo Sheekh Cabdirashiid ayay u yimaadeen oo markaa bay miskiin nagu la tukadeen way noo warameen markaa aan 2004 bay ugu dambeysay qaaradaas waxay yiraahdeen bariga aad timaadeen waan maqalay dadku way fiicnaayeen oo muslimiin bay haayeen oo dadku masaajida u badnaayeen laakiin maanta xaga kale beerta loo batay xaga beerta ma taqaanaan xaga balwada iyo khamriga iyo fisqiga loo batay bay yiraahdeen noo soo gurmada noo ka الله إذن بركيه سو دواده waxaan soo dhaweynaa insha Allah ta'ala sheekheena qaaliga ah anigu reerna kuro ah insha Allah ta'ala sheekhan soo dhaweynaa waxa weeyaan meeshan dadkaygan la qabsaday waa degay waxba ima dhinna marka sheekha martino ah marka sheekhan dhageysayna bi idin Allah tabaaraka wa ta'ala sheekha reerna kuro hadaan nahay ku soo dhawoonaa kuro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بانكو حمدنا مره رأي مرضا بابا قرآن كسورة أقوين وسورة الفاتحة بعد البسملة أيضنا وحي كبلا بنتاء الحمد لله رب العالمين
aadam calayhi salaam markii lagu afuufay ruuxda dhawaqii u horreeyay nebi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa u hindhisooday deedna markaasuu yidhi alxamdu lilaah. ahlaljannuhu markay jannada ay galaan waxay odhan doonaan waqaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah waawrathana alarda natabawa'u min aljannati xayثu nashaa fanicma ajru اlcaamiliin. ahla naarku walciyaadu biاllaah ayakana banka qiyaama marka laga dhaqaajiyo xagga naarta loo dhaqaajiyo ayaka laftigoogu waxay u mahadniqi doonaan ilaahay cadligiisa. waqudiya baynahum biاlxaq waqiila alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin. labada qolada jannada loo dhaqaajiyey iyo kuwa naarta xaggeeda loo qaaday intuba waxay dhihi doonaan baa ilaahay yidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin. dadka jannada xaggooda loo qaaday fadliga ilaahay bay ayay ku xamdinayaan, ilaaha u naxariistee jannadii ku deeqay. amaa qofka ahla naarka naar buuba u socdaaye muxuu ku xamdinayaa isagu? waxaa la yidhi isaguna wuxuu ku xamdin doonaa ilaahay cadligiisa. marka inakuna ilaahay mar walba inaan u mahadnaqno waa cibaado. afdal dikri laa ilaaha ila allah wa afdal ducaa alxamdu lilaah. xus ilaahay caza wajalla la xuso waxa ugu fadli badan kelmaddaas inaad ilaahay mar walba ku xustaa laa ilaaha ila allah. mahadnaq duco ilaahay la baryo oo ilaahay la baryo wax la weydiisana waxa ugu fadli badan buu nebigu yidhi inaad tiraahdaa alxamdu lilaah. haddaad mar walba noqotaa addoon mahadnaqaya nicmaduna way kuu ziyaadiya ogow. bilxamdi taduumu nicam wa bishukri tasdaadu nicam. haddaan ilaahay u mahadnaqna mar walba oon ilaahay mar walba carabkeenna ku hayno nicmaddaan haysanna way noo daa'imaysaa. oo hadyigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah mar walba nebigu ilaahay buu u mahadnaqayey. hadduu cunno cuno alxamdu lilaahi aladii acamanii warasaqanii min gayri xawli minii walaa quwa buu odhan jiray. hadduu jiif ka soo kaco alxamdu lilaahi aladii radda calaya ruuxii wacaafaanii fii jasadii waadina lii bidikrihi. hadduu maaragtaanay soo arka hadduu baytalmeyg ama xaaje uu soo guto gufraanaka buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. wa fii xadiiثin aakhar alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafaanii. hadduu qof dhibaataysan oo masiiba ay ku dhacday oo ibtiloobay hadduu nebigu arkana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima ibtalaa bihi calaa kaiira min cibaadihi wafadalanii ilaa aakhir alxadiid. ilaaha maaragtaane ii nicmeeyey ee maaragtaane balaayadaas iyo masiibada dadkaa badan ku dhacday aniga iga ilaaliyey ee khalqi fara badan uu sameeyeyna iga fadilay ayaa mahadla buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. yadkuru llah ilaahay buu nebigu xusi jiray mar walba. lanna dikriga ilaahay waa saddex qaybood: dikru اlqalbi iyo dikru اljawaarix iyo dikru اllisaan. dikru lisaan waa kan carabka weeyaan. markaad tidhahda subxaana allah carabkaad ilaahay caza wajalla ka xustay. markaad tidhahda alxamdu lilaah carabkaad ilaahay uga mahadnaqday. markaad tidhahda laa ilaaha ila allah carabkaagii baad ilaahay ku waxiday. markaad tidhahda allahu akbar carabkaagii baad ilaahay ku weynaysay. waa dikru lisaan. laa xawla walaa quwata ila billaahi baa ka mid ah. kanzu min kunuuzi اljanna waa kanzi jannada dhex yaalla buu nebigu uhi kelmaddaas. ibraahim calayhi salaam ibraahim alkhaliil ayuu nebigeennu ku soo maray samada toddobaad korkeeda. waxuu uhi ummaddaada salaanna iga gaadhsii waxaanad u sheegtaa arlada jannadu dhulkeedu waa dhul bannaan oo in la beertana maaragtaane ku fiican
dhirta jannada ku taalana waxaa lagu beeranayaa subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar. haddaad iminka halkaas ka fadhiisato oo tidhaahdo subxaana allah karsun fi ljanna, geed baa jannada lagaaga beerayaa. laa ilaaha ila allah markaad tidhaahdid karsun fi ljanna, wallaahu akbar markaad tidhaahdid karsun fi ljanna, geed jannada ku yaalla buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. faraska fardaha ugu orod dheereeya ninka fuushanee wata harhkiisa dhammayni maaya buu nebigu yihi hadduu 100 sano uu hoos ordana. waa geed jannada ku yaalla oo lagu diyaariyey adiga ayuha almuumin, oo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo takbiir aad ku beeratay. wadillin mamduudin waa ka ilaahay ku sheegay fii suurati alwaaqica. waa hadh la fidiyey weeyaan baa ilaahay yidhi jannada hadhkeeda iyo geedaheegu. faraska faras la fuula faraska ugu orod dheereeya 100 sano ayuu hoos ordayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. mana dhammayn karaysaan buu nebigu yihi oo ka bixi kari maysaan. waxaana lagu beeranayaa waa tasbiixdaas. man salla lilaahi 12 rakcatan taطawucan hayra alfariida bana allaahu lahu beytan fi ljanna aw buniya lahu beytun fi ljanna. 12 rakacadood oo sunno ah qofka maalinkii tukada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam aqal ayaa maaragtaana jannada looga dhisayaa. aqalka jannada lagaaga dhisay intuu la eg yahay ilaahay unbaa xajmigiisa iyo qiyaastiisa garan kara. 12 rakacadood buu nebigu sheegay. 12 rakacadood waa 2 rakacadood ee fajarka ka horaysa iyo 4 duhurka ka horaysa iyo 2 duhurka ka dambaysa iyo 2 maqribka ka dambaysa iyo 2 cishaa'iga ka dambaysa. 12 ka rakacadood qofka maalin walba laazima waa rawaatib ayaa la yidhaahdaa. ilaahay caza wajalla aqal buu jannada uga dhisaya. aqalka adduunyada, aqalada adduunyada bini aadam baa dhisa, injineer iyo cumaaliin baa ku dhisaysa. laakiin aqalka jannada muuminka ilaahay ugu diyaariyey ilaahay baa kuu diyaariyo wuxuu ku dhisay kun fayakuun. cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa yidhi qasri jannada ku yaalla ayaa jira. qasr 500 oo albaab buu leeyahay oo laga galo. albaabka qofka muuminku uu ku hagaagaba waxaa u joogta buuhi 5,000 oo xuuralcayna. waa 2,500,000 oo kun oo xawraaya ayaa hal qasri oo jannada ku yaalla ku xeraysan. markaasuu cumar binu khadaab ayaa la weydiiye oo lagu yidhi qasrigaasi cumar alfaaruuqow ma nebiye unba heli doona? markaasuu yidhi cumar haa nebiyaduna way helayaan laakiin sidiiqiintuna way helayaan buu yidhi. qasrigaasi waxaa loogu talagalay alambiya calayhim assalaam. markaasuu nebiga qabrigiisii gacanta ku fiiqo wuxuu yidhi hanii'an laka ayuha nebiy, nebi maxamedow qasrigaa waan kuu haneeyey. haddana abubakar qabrigiisii buu farta ku fiiqo wuxuu yidhi hanii'an laka ayuha sidiiq, qusuurta intaa leeg sidiiqiintuna way geli doonaan. hanii'an laka ayuha shahiid, wa annaa laka shahaadata yaa cumar. markaasuu yidhi weliba qasrigaa kuwa shuhadada ee gacanta cadowga ku dhintay ilaahay dartii loo dilayna way heli doonaan. laakiin cumarow adigu shahaado halkeed ka heli doontaa buu yidhi. maalintaa intii ka dambaysa cumar binu khadaab wuxuu bilaabay inuu ku ducaystuu yidhaahdo allaahumma arsuqnii shahaadatan fii sabiilika wa wafaatan fii baladi xabiibika. ilaahu aniga shahaado igu arsaaq, shahaado inaan diintaada u dhinto oo gacan cadow aan ku dhinto ilaahu ii dhib yare igu arsaaqo igu deeq, weliba beledka xabiibkaaga anigoo joogo ilaahu isii buu yidhi. markaasaa lagu yidhi cumar ma madiinata almunawara oo daarulkhilaafa ah oo cadligii islaamku meel walba uu gaadhay miyaad shahaado adigu aad ku sugaysaa? markaasuu yidhi ilaahay waa qaadir inuu isiiye buu yidhi. abu lu'lu'ata almajuusiy cabdumuqiira binu shucba kii midiyaha iyo biraha u samayn jiray ayaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu isagoo salaadiisu fajar ku jira ayuu midi geliyey baa layidhi intuu gadaashiisa soo taagay. markuu cumar dhulka ku dhacay ayuu yidhi ayaa i dilay, ayaa midida i geliyey ii sheega. markaasaa lagu yidhi abu lu'lu'ata almajuusiy walid maaragtaane muqiira binu shucba addoonkiisii majuusiga ahaayee dabcaabudka ahaayee biraha iyo qolxadada iyo seefaha iyo gaashaannada u samayn jiray kaabaad maaragtaane ku dilo isagiina waan haynaa. markaasuu cumar yidhi alxamdu lilah, marba haddaanan gacan muslim aanan ku dhiman oo nin majuusi oo mushriga gacantiisa maanta aan ku dhintay waataan ilaahay weydiistay buu ku yidhi, waataan ilaahay weydiistay.
daadna cumar markaa u dheelmaday markaas yani u miyir daboolmay markaasaa si walba markaa loo taataabtana jirhkiisii waa dhaqdhaqaaqaya laakiin hadal ma soo celinayo waa amiirkii muuminiinta dardaaran baa laga rabaa uu dhiig baxay dhakhtarada casrigan maanta innagu aan haysanana isagu ma haysan innaka markiiba qofka markuu shil uu galo ambalaas markiiba la booday dhakhtar baa la geenayaa bal ambalaaska dhexdiisa laga yaabaa haddii uu dhiig ka socdo markaaba dhiig joojin in loo sameeyo ambalaas dhulka socdana uu jiraa ku hawada socdana uu jiraa diyaaradaha waxaa jira iyakuna hawada maro oo lagu leeyahay waa ambulance waa la kireystaa cumar alfaaruuq radia allaahu canhu dhiw dhig baxay isagu nicmadan maanta innagu aan haysanay aalaadkan ilaahay noogu nicmeeyo dhinac walba ilaahay uu naga dhigay ma haysan iyaku zamankooga waa zamankii awrta iyo baqasha iyo dameeraha iyo lugta la adeegsanayey waa zamanka qofku hadduu helo hal wajbad buu cuntada cuni jiray waa zamanka qofku maaragtaanay hadduu aqalkiisa uu noqdo aqal cariisha oo maaragtaanay isaga uu qariya oo ilaahay ugu mahadinaya weeyaan zamankaasi markaasaa si walba loola hadla yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin nin baa yimidoo yidhi anigaa cumar kicinaya ii dhaafa buu yidhi asalaata yaa amiira almu'miniin الصلاة يا أمير المؤمنين